Asalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta ku xiran Adaameted. Mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka aad ku ogaan lahayd device-yada ku xiran internetkaaga. Waxaa laga yaabaa device badan oo adiga aqoon internetka inay kula isticmaalaan. Sidoo kale waxaan qaadan doonaa qaabka aad uga saari lahayd device-kaas ama asxaabta kula isticmaasha internetkaaga. Marka ugu horreysa waxaan tegaynaa Google Chrome. qayb search box waxaad ka qoraysaa 192.168.1.1. muuqaal hore ayaan kasoo diyaarinay qaabka loo soo ogaanayo IP addresska internetkaaga. Fadlan soo daawo haddii aadan hore usoo daawan. waxaa kusoo bixi doona login page oo noocan ah. qaybta ugu koreysa waxaad gelinaysaa admin, qaybta kalena password cusub haddaad u samaystay passwordkaaga. sidoo kale waxaa jira mowduuc hore aan ugu soo diyaarinay qaabka loo bedelayo passwordka iyo passwordka defaultiga. haddii aadan soo daawan descriptionka video aan soo dhigi doonaa insha Allah. kadib waxaad dhehaysaa login. si aad u aragtid dhammaan device-yada ku xiran internetkaaga waxaad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay check my network status internet. hadda dib moo aa dhahno waxaa arki doonaa dhammaan device-yada hadda active-ka iyo kuwaan active-ka ahayn. hadda waxaa active ah 5 mobile iyo 1 laptop. sidoo kale waxaa jira device badan oo ku xirnaa oo anaga qaar kamid ah hadda aan block saarnay. si aad block u saarto qof kula isticmaala internetkaaga marka ugu horeysa waxaad tegaysaa home network. sidoo kale markale waxaad ujeedaa dhammaan device-yada isticmaala internetkaaga. waxaad tegaysaa qaybta ugu hooseysa oo ah WLAN access. kadib waxaad dooranaysaa meesha ugu dambeysa WLAN access rule. waxaa laga yaabaa hadda optionka hore inuu ku saaran yahay. waxaad dooranaysaa optionka dhexe oo ah only specific computers in WLAN. kaliya waxaad saaraysaa device adi aad taqaanid magacyadood iyo qofka iska leh. anaga hadda waxaa active noo ah 5 mobile aan soo aragnay iyo computerka. adiga waxaa laga yaabaa ka badan inay active ku yihiin ama ay kiyar active ku yihiin. si aad block u saarto qofka la isticmaala internetka marka aad soo dooratid only allow. hadda mobiladan active-ka mid kamid ah waxaa saaraynaa block. waxaan block saaraynaa midka ay qoran tahay Wiko. tigla ka qaadayna kadib waxaan dhaynaa save. waxaan sugaynaa ilaa wax yar. hadda waxaan fiirinaynaa device-kan inuu active yahay iyo inuusan active ahayn. markale waxaan tegaynaa home. waxaan soo dooranaynaa check my network. kadib waxaan ku dhufanaynaa more. waxaan fiirinaynaa device Wiko hadda waa u jeedin laakiin active ma aha. sababtoo ah awood uma laha internetka inuu si isticmaalo hal mar haddii block aad saartid ilaa dib dambe awood gelisay. si aad uga soo celiso markale waxaad tegaysaa home WLAN access. kadib waxaad tig saaraysaa Wiko. kadib waxaad dhaynaa save. sidaan waxaad block saari kartaa dhammaan teleefanada ama kombiyuutarada adiga aan aqoon ee internetka kula isticmaalay. sidoo kale si aad ugu qortid magac u gaara teleefanada guriga laga isticmaalo waxaad tegaysaa LAN device. anaga hadda dhammaan teleefanadan hadda J4 iyo Wiko iyo J6 magac ka duwanaa ka qornaa hore. si aad u bedeshid magaca waxaad tegaysaa edit. waxaad ku daraysaa magaca adiga aad doontid. hadda Galaxy aad ku daraynaa Galaxy J4. kadib waxaad dhaynaa save. hadda waxaad ujeedaa Galaxy J4 kila edit tag kadib magaca doontid ku dar ama magaca ka bedel. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii ay tahay booqashadaadii koowaad la wadaaga asxaabtaada. sidoo kale ha ka ilaalin channelka inaad subscribe saartid. sidoo kale muuqaalkan like aad dhahdid. sidoo kale haddii ay jiraan fikrado ama mowduucyo gaar ah haddii aan lahayd in laga soo hadlo intuusan dhammaan taxanahan internetka fadlan commentiga hoose nooga reeb.